والله العظيم لا اله الا الله محمد رسول الله. حبيبي ما داش sideen u dalnin naagtada urka 2 kiiloomitir soo lugays iska neef gooso oo biyaha cab. magaalada markuu roobku doo ay bilaabas noqoto waa problem wallahi. adiga ayaa problem khadra mad bilow waa runtayde mad gaari yar noo iibis kol aqligaagan la yaaba. umaad dhaanta adigu sawdiga xoolaha caleenta la raamsanay waxaan awoodi lahaa inaan shaqeed ku qabto markaasaad gaari iibi ku leedahay aqli xumidaadan anu aqalka uga guuriba. jaadka haddaad iska dayn lahayd wax kastaad noo iibis kani ma daynayo ma daynaysid maaha ilaa qiyaamaha sidaa umurmayna ma ilaa qiyaamaha unbaan sidan u qaylina xabiibi. ha dhici mayso ee wadka inoo soo kala horayn ama adaa iga horayn ama anaa kaa horayn. maantada malakumoodka ku yimaad astaghfirullah naga tuf kaama tufaye waan liqi yaa rabbi waxa ay wado waa xaasnimo waxba ka qoran yaa rabbi. yaa rabbi waa beenti ilaahu haydilni anoonan ilmaha arkin ay waxaasoo dhibaatay gaadheen kol baasta dalac kol shawradu faraha iga dhigto anoonan weligay madaq gelin baan madaq galay. diifron kaamu gaadhin ilmaha halkaadii oran lahayd waan kuu xiisay iyo hadallo jacayla unbad qaylo la soo gali khadray. xiise heede ilaahay iga kaxeey walxamdulillah maad lahayn xabiibi sidaa oran markuu teleefonkaaga sii soo dhacay anuu mijiiska dhex fadhiya farxadii iga dhacday heedhe waxaan la farxad ahaa maad garanaysaa. maya ii sheeg ayaad la farxadahay bal adigu waxaad sawirtaa heedhe qof bilaa shahaada oo 15 sano shoomeernimo ku raagi oo lagu yiri Djibouti Telecom baa lagu shaqo geenaya bal farxadiisa sawiro. waxaan u malaynay inuu markuu maqlo farxad naftu ka bixiba bal ka waran saasi naftu iga bixi gaadhay. war alla ka baqbeenta noo darinay haade waka iga xubig ma qoraysid ma may xabiibaan ku sadaqaya aloodaadi ugu horay markaan maqlay si dadkii maan dooriyaha cunay ay kala galashadii iga guur. xabiibi af macaanideed ka raacday cidna kama raacin ee dareenkayga ma sheeganayaano ma sidaana qarsada. af macaanida inta leeg qof dhanbaad ku iibsanaysaa jaamacadeed uga soo baxay jaamacad ma jirtee waa jacaylkaaga wax la jibbood. jacaylkayga la jibo ha marka la weydiiyo ee la igu yiraahdo khadar maalintii kugu wanaagsanayd noloshaada waa maalintii waxaan ku jawaab mad garanaysaa. Maya. waxaan idhaahdaa waa maalintii khadra lii meershay. xabiibi igida hadallada noocan oo kale sabab maqayladii baad rabtaa. qalbigaygu aad buu jilicsan yahay inaan suuxan ka baqayaaba waa runta laakiin waxaa soo hadal waxa iga keenay waa jacaylkaaga. alla jacaylo jacaylkan kuu qabo waa xad dhaaf in la igu cadaabo ayaan ka baqayaa ayaanta aakhiro. insha allah jannada inoo ballan aamiin 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 maanta waad runtahay wallahi aamiin. xabiibi wax yar ma ku weydiistaa waxaa lii waxaad jeceshahay i weydiiso halkaa baan keenaynaa. xabiibi wax kale maahe lugahaaba yar xanuunsanaya iyo radi yaa ma furahaygaa nadiiftan cagahaagaa dhooqada leed aan la soo lugayna la gala xabiibi ilaahay kama baqaysid. adiga soo lugaysiye ma tagsii karaysid taksi alahaani farahayga lama galay cagahaaga ee ora soo caga maydho. yaa farahaaga hodiga xaarka iskaga meedha kuwaygu waaba dhooqa yare Naa ceeb. maxaa ceeba ma qofaan xaarin baa jira sidan caadi kuma tiidi waa inaan cilaajka ku geeyo imkuman jacayl iyo waan ku jeclahay aan kaaga sheekeynayay markaasaad ku leedahay haa iyo waad ku sheekeynaysaa afka isku qabo waxaas waxa lagu hadla maahin. waa runtay naahus xaarku kugu dhig